xikmad caana ayaa oranaysa waxaad badanaa la mid noqonaysaa 5 qofood ee aad waqtigaaga ugu badan la qaadato. haddii aad waqtigaaga la qaadato dad maskax wanaagsan caqlina u saaxiiba waxay kor u qaadayaan niyadaada. kasoo horjeedkeeda haddii aad waqti la qaadato kuwa niyad xun xitaa guulaha yaryar ee aad gaartay way kaa burburinayaan. sidaa daraaddeed waa laga maarmaan inaad aqoonsato nooca dadkaas ee noloshaada sunta ku ah kana dheeraato. waana sababta aan idinla wadaagayo 9 nooc oo dadkaas ka mid ah oo aad u baahan tahay inaad gebi ahaanba ka fogaato. 1. kuwa aan islurin. ma jiraa saaxiib mar kasta raadiya waddo uu kugu dhiibo howl ay ahayd inuu isaga qabto. ismalurayaashu waa kuwa aan howl jeclayn beddelkeed dadka kale u dira kadibna iyaga sheegta guusha. haddii aad ku aragto saaxiibtaa ama koox aad ka mid tahay sifaha caajiska ama islurid la'aanta xasuusnow inay saamayn toosa ku leeyihiin habdhaqankaaga. ismalurayaashu ma lahan wax hadaf ah, noloshooduna ma lahan jiho ay u socoto. maahan kuwo xun oo dhib iyo dhaawac toona ku gaarsiinaya, laakiin habdhaqankooda ayaa si toos kuu saameynaya. sidaa daraaddeed ka saar noloshaada mid kasta ismalurta ah keliya waxay waxyeeleynayaan noloshaada. 2. kuwa dhiigmiiratada ah. haddii aad weligaa dareentay inuu qof ku isticmaalayo dabcan aqoon fiican baad u leedahay nooca dad ee aan ka hadlayo. dhiigmiiratadu waa kuwa noloshaada ka miiranaya dhinacyada dareenka, waqtiga, tamarta iyo dhaqaalaha. xiriirka dhiigmiiratada wuxuu la mid yahay sida noolaha loo yaqaano gooryaanka ee ku dhex nool jidhka bini'aadamka kaasoo miiranaya dhiiggaaga ilaa ay dhiigyari kugu dhacdo. waxay kaa qaadanayaan wax kastoo faa'iido leh ee aad haysato iyadoo aadan waxba ka helayn xaggooda. dadka noocaan ah ma soo saari karaan wax naftooda waxtar u leh, laakiin waxay keliya adeegsan karaan waxa wanaagsan ee aad adiga haysato. xiriirku wuxuu ku dhisan yahay inay labada qof wax isa siiyaan. haddii aad dareento xiriirka aad ku jirto inaad adiga keliya tahay qofka wax bixinaya waxaa la joogaa wakhtigii aad gebi ahaanba isaga huleeli lahayd. 3. kuwa xakamaynta jecel ama inay wax xukumaan. waa kuwa ugu xun dadka waana la mid dhiigmiiratada, waxayna mar kasta jecel yihiin inay ku isticmaalaan si ay wax kaaga helaan, iyaguna marna diyaar uma aha inay wax ku siiyaan. si kastaba kuwan xakamaynta jecel waxa ay ka daran yihiin kuwa dhiigmiiratada ah. waxay jecel yihiin inay isticmaalaan handadaad. waxay adeegsadaan erayadaada, dacfigaaga, xitaa shucuurtaada si ay kuu handadaan aadna u samaysid waxa ay rabaan. waa kuwa khiyaano badan oo mararka qaar ay adag tahay inaad la macaamisho maxaa yeelay waxay kugula dhaqmayaan sida saaxiib. way adag tahay in si dhaqsi leh loo aqoonsado. waxay isku dayaan inay soo jiitaan dhugtaada. waxay og yihiin waxaad ka hesho, waxaadan ka helin iyo waxa aad ku maadsato, laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay macluumaadkaas oo idilka dhigtaan hubsireed ay adiga kugu handadaan. mar alla marka aad dareento inuu qof kugu handadayo inaad wax u samayso waa calaamad ku tusinaysa xumaantiisa, haddaba isaga carar meesha. 4. midka xaasidka ah ama xaasidada ah. si uun iyo mar uun qofku wuxuu dareemaa nooc xasad ah. si kastaba haddii maseerka ama hinaasaha si xeeladaysan loo maarayn wuxuu sababi karaa arrin aad u qaabdaran. dadka awoodda u lahayn inay iska joojiyaan xasadka waxay mararka qaar isku arkaan in iyaga la xasdayo. dadka xasadka badan maahan kuwa qanca xitaa marka ay wax weyn la kulmaan. waxay ka fikiraan mar walba inay jirto cid waxaasi kaga fiican. beddelkii ay u dabaaldegi lahaayeen guushooda waxay la barbardhigayaan dadka kale. waxay wax walba u samaynayaan inuusan qof kale ka fiicnaan, xitaa haddii ay ku qaadanayso inay dadka kale dhulka ku jiidaan. inaad waqti badan la qaadato dadka xaasidiinta ah waa mid halis ah maxaa yeelay waxay ku barayaan inaad yaraysato guushaada. sidoo kale waxay isku dayayaan inay kaa xadaan guushaada. mar kasta waxay ku dareensiinayaan inaad la tartami karto. haddii aadan ka digtoonaan waxaad ku lumaysaa meel dhexe. inta aad awooddo fadlan isku day inaad ka dheeraato xaasidiinta, xitaa way ku dili karaan. 5. dadka dhibanayaasha ah. weligaa ma kugu dhacday in qof waxoogaa yar aad isfahmi weydeen dabeetana uu oohin bilowday isagoo ama iyadoo eedda dusha kaaga tuuraysa? shaki kuma jiro in qof walba uu iska yeelyeeli jiray dhibane wakhtiyo lasoo dhaafay, gaar ahaan wiilka ama gabadha cidda ugu yar. si kastaba haddii uu qofku diido inuu ka weynaado caadadaas islamarkaana uu la tegayo xitaa goobaha shaqada waxay noqonaysaa arrin xasaasi ah dhimaalkeedana leh. dadka noocaan ah mar walba waxay dareemaan in adduunka dhan iyaga ka soo horjeedo. waxay iska dhaadhiciyaan in la dulminayo qof kastana uu ka khaldan yahay. inaad iska yeelyeesho dhibane si aad u soo jiidato dareenka dadka kale waa sida cunidda cunto xun taasoo waxyeelo kugu geysan karta mustaqbalka. sidaa daraaddeed waa inaad iska ilaalisaa shakhsiyaadka jecel dhibane iska yeelyeelka. 6.
kuwa naf ahaan is-cajabiyey. cilmi baaris la sameeyey ayaa daaha ka qaaday inay fududahay in la soo jiito shakhsiyaadkan. waxay bilowga horeba isku dayaan inay noqdaan kuwa soo jiidasho badan, laakiin waqti yar kadib waxay isku beddelaan kuwa cabsi qaba oo tartan ku jira. qofka is-cajabgeliyey waxaa loo arkaa inuu yahay qof jecel naftiisa, dhabtiina dadka ka masiirsan yihiin. laakiin marka loo eego cilmi baaris uu sameeyey dhakhtar psychology oo lagu magacaabo Steve Johnson, wuxuu sheegay in qofka is-cajabgeliye uu yahay mid qariyay xaqiiqdiisa shakhsiyeed, iyadoo ay ugu wacan tahay xanuuno iyo dhaawacyo hore u soo gaaray, uuna ku beddelayo caadooyin nafeed cusub oo uu iyada ama isaga kontaroolayo. haddii aad aqoonsato qof si joogto ah u muujinaya dhaqamo naf is-cajabgelin ah, ka fogow masaafo macquul ah, iskana ilaali inaad fad la wadaagto, haddii kale waad ka qoomamayn. 7 kuwa beenta badan. hagaag waxay ka mid tahay dhammaystirnaan la'aanta bini'aadamka inuu been sheego si uu u badbaadiyo xaalado markaas jira. si kastaba, kuwa caadaysta beenta waxay been sheegaan fursad kasta oo la siiyo. xitaa iyaga ayaa abuuranaya fursado ay been ku sheegaan si ay u muujiyaan awooddooda been sheegidda. waa wax laga caroodo inaad la jirkiisa noqoto qof mar kasta wejigaaga hortiisa been ku sheegaya. haddii uu qof markii ugu horraysay uu been kuu sheego, iska cafi, laakiin haddii uu caado ka dhigto ama ka dhigato, u firaaqay qolka. 8 qofka dabcigiisa isbedbedelayo. jajabinta alaabaha, waxyeelaynta nafta, iyo burburinta xiriirada iyo kuwa kaloo badan waa caadooyin lagu yaqaano kuwa dabcigooda isbedbedelo. dadkani waa kuwa shucuurtooda xamaasadaysan tahay islamarkaana aan la xakamayn karin. waa kuwa ku soo weeraraya xilli kasta, iyagoo kugu soo tuuraya dareenkooda cabsida, malahooduna yahay inaad tahay qofka sabab u ah qanaaco la'aanta haysata. waxay xitaa isku dayayaan inay ku handadaan shucuurtooda, iskana yeelyeelaan inay yihiin dhibane. dadka dabcigooda isbedbedelayo way adag tahay inaad noloshaada ka tuurto, taasoo sababteedu tahay isbeddelkooda joogtada ah iyo inaysan xakamayn karin dareenkooda, adigana aad kaga xumaanayso. haddii habdhaqankoodaasi uu waxyeelaynayo noloshaada, la baxso lafahaaga. 9 dadka dhanka xun wax ka eega ama kuwa togan. waxaa jira dad badan oo leh sifahan, waxaana lagu qeexaa inay yihiin dadka dhanka xun keliya wax ka arka, wanaaggana ka indhasaaban. waxay dhex soconayaan meelo aad u qurux badan, beddelkii ay la dhici lahaayeen waxay horansiinayaan inay sheegaan waxa xun ee ka muuqda ama xitaa aan u muuqan. ka dheerow dadka noocaan ah, waxay saamayn ba'an ku yeelan karaan dabcigaaga, maxaa yeelay waxay dhibaato u ahayaan xal kasta. haddii aad mid ama 2 ka mida u oggolaato noloshaada, noocyada dadka aan soo sheegnay, waxaad si dhaqso leh u ogaanaysaa sida awoodda leh ee ay gadaal kuugu celinayaan. xigmad laga hayo Hannes F. Hansen ayaa odhanaysa, dadku waa kuwa ku dhiirigelinaya ama dhulka ku dhigaya, haddaba u dooro si caqliyeysan. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan u riyaaq ama like saar, lana wadaag asxaabtaada baraha bulshada. sidoo kale ka fikir inaad xukumato ama subscribe aad tiraahdo kanaalkan, gambaleelkana aad furato si aad ula socoto muuqaalka kan xiga ee aan soo gelin doono insha Allah. waan idin jecelnahay. mahadsanidin.